barasaafka gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray isku duwayaasha kala duwan laamaha dawladda gobolka Awdal ka howlgala kulankan oo socday saacad ayaa waxa lagu lafaguray xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada gobolka Awdal siiba xanuunka sii faafayay COVID-19 iyo abaar soo food saartay deegaano kamid ah gobolka Awdal markii kulankani u dhaxeeyay barasaafka gobolka Awdal iyo suudayaasha kala duwan laamaha gobolka Awdal uu soo gabagabooday waxa warbaahinta la hadlay barasaafka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxana uu isdul taagay qodobada ay ka wada hadleen isaga iyo suudayaasha kala duwan laamaha gobolka Awdal arinta COVID-19 waxaanu go'aansanay oo la isla gartay inay liidato wacyigelintu sidaa darteed waxaanu qaybinay 4 gaari oo 4 mikrofon la saaro oo loo qaybiyay magaalada afarteeda waaxid 4 gaari oo shaqaalaha wasaaradda warbaahinta jooga la howlgeliyaan waxaanu qaybinay wacyigelinta 3 maalmood oo soo socda ka tanbaanu gaadiidka dawladda oo sameeynay 3 maalmoodba 3 gaaro cusub oo hay'aduhu leeyihiin ka dawladda hoose galiyeen arintaas waxaanu ugu mahadnaqaynaa imaamada masaajidada oo runtii salaadii jimcaha shalayto kaga hadlay sidii la isu ilaalin lahaa aad baan ugu mahadnaqaynaa culimada dadweynaha ee kalena waxaanu leenahay war waxba la idin sheegay waxa la idin sheegay qaata waxaanu u baahanahay oo kaliya iyana baahay soo baxday war dadkii dad badan oo u baahan baa jira baalkii afka la isgaxay afsaarkii iyana inaanu bal meel kasta aanu ka doonne baalkii afsaarkaana gaadiidka la saaro si ay dadka la hadlayaan ugu qaybiyaan ayaa la isla gartay way ku mahadsan yihiin isuduwayaasha gobolku hawsha si wanaagsan ayaanu uga faraxalanay qaybta labaad waxa ahayd qeyladaantii abaarta markaanu soo wareysanay wax biya yaraana meel qudun baa laga soo sheegay barakacayaasha galbeedka degan magaalada waxa dhibaato weyn ay ka taagantay oo aan soo maray maalin oo degmada Baki eeriyadeeda su'aasha la weydiiyay waxay noqotay bal waxaad ka warantaa ninka meeshiisii abaar uga guuray ee xayskii waqooyiga doontay ee xayskiina waxba laga soo waayay ee dad meeshu dhowr bilood hortay abaar uga guuray iyadoo sidii ku soo noqday baahida jirta waxay noqotay calaf xoolaad iyo calaf dad labadaba insha Allah qodobka koowaad waxaan isla garanay Ilaahay baa quraankiisa nagu warsiqoon samadu ka jiray inaan Ilaahay barino waxa Ilaahay loo noqdo kalabaad waxa la yaalay wixii suurtagal ah in heli karo in marka hore aanu gobol ahaan isku tashano mar labaadkana wixii qayladaan aanu dawladda xukuumadda u dirsan karno inaanu u dirsano iyana qayladaanta waan isla qaadanay dadweynaha gobolka Awdal waxaan leeyahay war waxa la naga hadlayaa waa nafteena maaha aduun maaha waa naf taxadir badan baan hadaynu gobolkanay waliba magaalada madaxda Boorame aynu nahay leeynooga baahan yahay insha Allah dadweynaha waxaan ka filayaa shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa wacyigelinta labadaba inay gacan ku siiyaan hawsha ay hayaan waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama